اوكي ادو marka xal xawaal ila taa noo sheegtay qabiilkaagu soo laab maxaa noogu sheegtay qabiil aad ahayn abtarta wayda ay soo korsatay aniga wayda abeen oo la hijray kaltay wayda in habargada ceera qabo hal wiil u dhashay garatay haye seetahay maanta meel kasta laga soo wacay kiiskaaga saameyn badan buu igu yeeshay ma faham صح waxa la yiri horta gabadha xawaalo ma صح waxa kale la yiri ninka uu qabtay gabadha ay habreedad te ninkan ma jarteen hee gabar in habreedda inuu qabi jira la sheeg mar hore ha wiilkiisa ay la egbo wiilkiisa iskeen bare isla egnaa isku gura ku noolaan jiray ku noolaan jirneen habarteer joogay ismaayo maya iyo qabi jira marka hore ninkan gabadheedu habreed aan nahay ba hore u qabi jiray wiil bay u dhashay ina habreedda ku jirin faansi sahooyada reem halal dhashay soo ma hooyada gabar reer mahad ah bay walaalihiin soo ma gabadha reer mahad kabarta reer mahad ka gabadheedu oo qabi jiray may ha oo qabi jiray gabadheedu habartadi ala nooleed ee jaamacadda ka ah macalinka ka ah ha waxa takhtarad weena imshayga ka shaqeysaa ha dhaqtarada ay gabadheedu qabi jiray ha maamada ay soo koriso waa la joogi jiray ma way soo korisay waa la joogi jiray ha haye soo wiilkiisa iskeen baray aniga aabiisa aqoon uma laheeran bare kama haynin asaa wayday aabahay baro soo waa isdagaalnay waxaa la lahay gabadhaada wiilkaaga gabadha habartiisa oo boodilay soo waxa gabadhana daaweysanay waa rawaa saan waa halii baro meesha isku baranay haye intaas okay aduu marka xal xawaal ila taa noo sheegtay qabiilkaagu soo laab maxaa noogu sheegtay qabiil aad ahayn abtarta wayda ay soo korsatay aniga wayda abeen oo la hijray kaltay wayda in habargada ceera qabo hal wiil u dhashay garatay haye Abdulqaadir al-Umar la dhahaa iskuul oo dhiga asigana waa laga yaqaanaa magaalada Qoryooley waaye Abdulqaadir al-Umar gacmay Allah ma malaynaa haye hadani hooyo waxay dhees cidaasa tahay bis ato aan qadar binta liidi jirso aabahay anoo yaray ka tagay hooyada abeena kala guursaday mana soo xiriirnaynin waxan man siina waxay dhijirto hooyada irmaa uu igu deeriyay aabihiina wax kasta hooyada qaban jirtay anaga xanuunsanahay anaga dhar arabna wax kasta hooyo aaba booska ayada noogu jirtay ayada la ku soo aqleys kadib walaasheeda adig ismaa joogta birtay meesheeda ku sii aqleysto oo ninka isku baranay qabiil waxa ma aqaani marka yaa ta hadda markii shaqada ta saxda ah soo hadda waxa la hooyada ii sheegtay waxa ay dhahday diraa tahay jiida cali madaxweyne dirad jiida taama ku tiri ha dirbay gashaabay u tiri cali madaxweyne dirad manali soo ma taqaanaa jiido may waligay ma maqal laakiin hadda aniga maqlaya maanta igu horeysay markay iyada wareysanayay maanta igu horeysay jiido daahir jiido waa dhanka reer koonfur waaye jiido waa jirtaa ma maqal jiido waa jirtaa daaro jiido waa jirtaa waa dhankan koonfurta degan tahay luuqad gooniya bilaada diman diro caadiya digili mirifla ku ogaay سلطان سالم علي وإبرو أتقانا مع رئيس الوزراء دلك لكن نكاس دقيل من فلوح كوكا جري dadka dhan waxay soo qorayaan way jirtaa bay soo qorayaan dadka dhan ma fahantay jiido laakiin maanta waxaa naloo sheegay daahirow waxbaa la isku qaldayaa inan baa soo kortay waxay tiri dirta waa jiidle laakiin jiido waa qolo kale tiri walaal adhoona waxay isku qaldayaan habar yar ma jiido ma dirbaad hooye ma dirbaad tay ku tiri way ka shaabaleeday anigu waa soo qabay absolute bes hadaba okay kadib mala qabiilka dir ka mid oo baranay weeyaan waa tolka iyo soo dhaweynayna maya jiida koonfurta caanay ka tahay laakiin waa dir baa dadka dhan way soo qorayaan dir bay soo qorayaan isu fere in daaro salaamaya dhamaan salaamaya jiido waa niman reer koonfur galbeed waa todoba digil dad la dhahay kamid yihiin digilka sida garaha iyo ayaga waa nimankan qoryooley iyo ilaa iyo meelahaas dego
وصل درد له oo maxaa dhacay digilku ma dirba markaa digilku ma dirba دقل السوبر هذا waa maxay toddoba digille دقل وجيدة در الرحوين واي الرحوين قراهنا maxbaad ku qaldaysaa walaal ma raxweyn baad dir u هذا samaysay ما هي ما بده ما ينين ايوه هذا سوق ده نادر محا قلدن فيري قراها سو نمن قردير سمالو ولا مدو دقل معها ترنو يين انت نوا كترسين ما دام الديغان كان يدقيين ان 4.5 كا او حيابات سميوا تقانا أسل باش سنة وقاتان نمن كان هويها الجوران او كله وانا من هويها وحنا كو قاتان باش سنة وحاس wax macna weyn keenayo ma aha laakiin way gabar jiida ku soo marka basically digil min fi wax ma qaataan laakiin waa dir ها ما يعبى جيدة باشر 25 meelo laakiin gabadha hooyada anigu xawaalo aleeda ma fahmin digil iyo milifley ku jiraan haddana waa daaro ana baraadi shalay oo reefurulay ahay eediyo gabadha hooyada laakiin waa xawaalo samaan ha ana aqaan waa islaan ورني وقبل قبل سومالية هلقا وقبحها أنا ما نتقانا بجبدان ما تقانا أنا إيش أكتب هويدا أنا اللي إنه يرى سومالية ويا كتقانا ولا وارد بس شو من السبب معنا سبحان الله أحمد قال لي أسوق أنتو كسر نقرأ داير marka basically her mom waa xawaale it's okay aniga gabadhan hadday dhibaataysan tahay ee waxa shalay la sheegayo oo ninkii dhahay waa abuse gareena meelaha ku xiranaa qabiil kastee tahay aniga waa kaalmeynaa fuck him أنا Soomaaliya iga badan ma garatay maanta dhan qabiil waa la tacaaruf aqoonsi waxa faa'iido ma laha laga hadlaa qabiil qadro because qabiilaa la isku kaalmeeyaa hadda dadkaan xawaalo meel ka ma jiro waa abtiyaasha ma fahamtay abtiyaasha adeeryaasha mar walba abtiyaasha fiican baa alxamdulillah ma fahamtay waaye beelaha bararka waaye ninka abtiga waaye ayagaan ku garab taagan mar walba جيد waaye laakiin waxay ku jiraan mirif digil iyo mirifley kamid yihiin aniga daayir oo fiiri adeer ma maqle listen to me adeer horta ninka shalay qaabku u hadlaayay oo abusive ka ah horta aniga totally against ku ahaa gabadhan hadda muhiim ah qabiilka tahay iyo waxay tahay waxa ii daran leh in ninkan oo gabadhan ku noqoto hadana aqliga ka xado soo shalay uga xaday oo dadkeedoo taagan ka soo dhaxbaxsaday oday maafiya mooryaan ah inuu yahay aniga waa ii cadtahaybo walaasheedu qabay ama habirteed waa hadana cunugtiireedo wiilka hadday istagaaleen hadana ayada meeshaas ka shukaamiyey cunugtaan cunug wax haysanin waaye maybe reerkeedana reer duruufsan waaye ani waxaa dhihi lahaa xoolaha maamada lagu wareejiyo gabadhaasna gacanta gabadheeda ha ku dhigato inta meelaha lagu abuse gareyn lahaa aakhirka waa badilayaaba kan beel hiraanay maanta waxay tiri gabadhan ay iskaranayeen ee soo gashay life nala soo gashay waxay tiri Nairobi uu imaanaya Nairobi markuu imaadana uu yeedhanaya orod ugu tagaysaa markii uu tagtay kadibna uu xumaynaya asaas Nairobi marka aniga waxaan ka afeef dhiganayaa khadray habar yar qof loo yeedhiyo dhamar area ha noqonin gabadh yar oo qurux badan baa tahay hore u soco waxa yar lagu siina wax ku qabsan ku leeyahay intaas aan dhihi lahaa ما أبا أصحاب كقاعدنا يعني ساعة مثلنا بنيك ساس وبعدلا ما مقلة هبرير قدره هبرير هرتو جورك probably ما تقاني هرتو أفريقيا نواج جوكتا نمكان قربها كتجنا قبلها آدي وأبيوس كريان سيبا قبلها أو معناها family أذك إنه كل حجرين هبرير إيو whatever لقى صوت أنا وتعس عليها بنا بهاو easy وقبلها كوس السبت الله كقتال الشيطان أنا عارف قتال استغفر هبرير عاود هذيك كره يوحاس ميل أسارنا لكن داير أرنتان أخرشينه كمان أسير العكتان وقبابي إن hadda waxaan ku soo dhahay $300 u sii dir oo asaga bixis kirada guriga iyo wixii waxaan dhahay lacag daawada